madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa goordhow waxa uu shaaciyay in safar degdeg ah uu ku tagi doono Soomaaliya. ujeedku waxa uu ku sheegay inuu qayb weyn ka qaadan doono soo saarka shidaalka Soomaaliya isla markaana uu dhagax dhigi doono xarumo gaar ah oo lagu talagalay in dayax gacmeedka Soomaaliya laga tooriyo laga ridi doono. madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan saraakiil iyo xubno ka tirsan xafiiskiisa waxay si toos ah u sheegeen in dawladda Turkigu ay markaan u soo jeesatay qaabkii ay u garab istaagi lahayd Soomaaliya. Erdogan ayaa dhanka kale waxa uu tilmaamay in dawladdiisa muddo dheer ay ka shaqeynaysay qaabka ugu fudud ee loo gaari karo hadafka guud ee ah in la soo saaro shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ku jira dhanka Soomaaliya. ila wareedyo kala duwan waxay warbaahinta Xuraasi u sheegeen in maalmihii u dambeeyay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu waday dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka ugu fudud ee loo gaari karo ujeedada ama hadafka guud ee lagu soo saarayo dhanka shidaalka Soomaaliya. sargaal sare oo ka tirsan dawladda Turkiga waxa uu sheegay in maalmihii u dambeeyay dawladdaasi ay qorsheynaysay abaabulka safarka madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ee dhanka Soomaaliya, waxaana ugu dambeyn la gaaray hadafkaasi maadaama madaxweyne Erdogan iyo wafdigiisa Soomaaliya ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku soo gaari doonaan inta lagu guda jiro bishan January 2026 kahor inta la gaarin bisha barakeysan ee Ramadaan ee ku beegan dhamaadka ilaa bartamaha sanadka waa dhamaadka ilaa bartamaha bisha February ee soo socota 2026 gaar ahaan wixii ka dambeeya 17 bishaas ayaa waxa la sheegay in madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu Soomaaliya muddadaas uu ku imaanayo isagoona hadafkiisa ama ujeedkiisa ugu weyn uu yahay arrimaha la xiriira soo saarka shidaalka iyo kheyraadka kale ee dabiiciga ee ku jira gudaha Soomaaliya. ila amni ayaa waxay sheegeen in dawladda Turkiga maalmihii u dambeeyay diyaarado qalab casri ah iyo ciidamo ay u soo direysay dhanka Soomaaliya iyadoona warbaahinta ugu afka dheer waddanka Turkiga marka laga soo tago tan dawladdu ay sheegtay in ay wado dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira safarka madaxweyne Erdogan oo noqon doona markiisii afraad ee Soomaaliya uu tago. saddexda jeer ee hore uu Soomaaliya u tagay madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan waxa uu isbedel weyn ku sameeyay mashaariicda iyo howlaha kala duwan ee Soomaaliya ka socda iyadoona ugu dambeyn madaxweynaha Turkiga uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo guud oo siyaasadeed oo la xiriira arrimaha Soomaaliya. Erdogan ayaa waxa uu dalkiisa sheegay in uu ka shaqeynayo sidii Soomaaliya ay cageed isugu taagi lahayd iyadoona dhanka amniga, dhaqaalaha iyo isbedel kale uu ka jiro dhanka siyaasadda Soomaaliya. dawladda Turkiga ayaa waxay wararka sheegayaan in ay go'aansatay sidii ay u difaaci lahayd Soomaaliya iyadoona madaxweyne Erdogan uu bilaabay dhaqdhaqaaqyo guud oo ka sameynayo dhanka gobolka. dalalka Sacuudiga iyo wadamo kale oo Qatar ay ka mid yihiin ayaa dawladda Turkigu waxay kol hore sheegtay in iskaashi kala sameynayso arrimaha dhanka Geeska Afrika si looga hortago faragelinta lagu hayo gudaha Soomaaliya. waxay taasi keentay in saraakiil iyo diblomaasiyiin kala duwan oo Ankara ka tirsan in ay imaraan wadamada qaarkood iyadoona wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan uu tagay wadamo kala duwan waxaana uu kala hadlay dalalkaas uu tagay mas'uuliyadooda qaabka ugu fudud ee loo gaari karo in la sameeyo isbahaysi weyn oo lagu difaacayo dhanka Soomaaliya sida ay sheegeen mas'uuliyiinta iyo xubnahaasi. sargaal sare oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa waxa uu carabka ku adkeeyay inay socdaan dhaqdhaqaaqyo guud oo la xiriira qaabka loo gaari karo hadafkaasi iyadoona mas'uuliyiin ka tirsan Ankara ay tilmaameen in ay socdaan dhaqdhaqaaqyadaasi guud ee lagu sugayo amniga si loo gaaro hadafka ugu weyn ee ku abdan in ay xaqiijiyaan amniga guud ee badda Soomaaliya si loo soo saaro kheyraadka dabiiciga. Turkiga ayaa bishii dhamaadkii u ahayd 2025 ee December waxa uu sheegay in bilowga sanadka 2026 gaar ahaan bishan January in dawladdiisa ay ka shaqeynayso qaabka loo soo saari karo dhaqdhaqaaqa guud ee la xiriira ama shidaalka guud ee Soomaaliya ku jira si loo soo saaro macaadinta taas oo keenaysa in farsamooyinkaas Soomaalidu ay ka faa'iideysan karaan waa sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Turkiga. ila wareedyo kala duwan ayaa warbaahinta Xuraasi waxay u sheegeen in maalmihii u dambeeyay dawladaha Soomaaliya iyo Turkiga ay ka wada hadlayeen qaabka ugu fudud ee loo soo saari karo shidaalkaasi iyadoona wafdiga sare ee Turkiga ka socda ay yihiin kuwa ugu badan ee diiradda saaraya arrimaha guud ee la xiriira dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda dhanka Geeska Afrika.
si kastaba muddooyinkii u dambeeyey turkigu waxa uu waday dhismaha ciidan Soomaaliyeed oo badda iyo cirka ah iyadoona Ankara tijaabo adag ay marisay Soomaalida isla markaana diyaaradaheeda kuwa ugu casrisan ay gacanta u gelisay ciidanka cirka Soomaaliya kuwaas oo si amni ah u xafiday diyaaradahaasi isla markaana dalka ugu shaqeeyay wixii warar iyo dhacdooyin arrimaha ka soo kordha baahinteena tan xigta ee warmaynta Xuraansi ku daawo waad ku mahadsantahay daawashada iyo la socodka wararkayga.